Sheekadii Alaatiin. Beri hore waxaa jiri jiray tuulo aad u yar. Tuuladaasna waxaa ku noolaa wiil iyo hooyadiisa. Ayagana ma aysan haysanin wax cunto ah. Waxayna ahaayeen dad faqiiriin ah. Muddo kadib waxaa albaabka u soo garaacay nin. Wuxuuna ahaa Alaatiin abtigiisa. Abaayo, waa aniga walaalkaaga. Walaal, intee jirtay? Sanooyin badan aniga kuma arkin. Waan ogahay abaayo, waana ka xumaa inaan noloshaan xunigaaga tegay. Waana ogahay inaad ku jirtiin nolol aad u adag oo xitaa cunto aadan haysanin. Haa walaal, maxaa yeelay anagu waan ugu adagtahay inaan lacag helno. Sidaas waay aniga sababta u soo laabtay. Hadda ka bilaab noloshiin way qurux badnaanaysaa, lacag badanna waa heleynaa. Waa arrin aad u fiican midaas walaal. Alaatiin, abtigaa garaac. Alaatiin waxa uu raacay abtigiisa asiga oo rajeynaya inay heli doonaan lacag aad u fara badan. Noloshan xun ay ku jiraan ay ka bixi doonaan. horta anaka abti intee u soconaa lacagahan intee ka heleynaa. Waqti dheer ayay soo socdeen Alaatiin iyo abtigiisa. abti anaka waxaa soo soconay waqti aad u fara badan ilaa intee ayaa noo dhiman. Waan joognaa. Adiga ma u jeedaa dhagaxaas meeshaas yaalo? Markii aan dhaqaajina dhagaxaas waxaa ku yaalo god. Godkan wuu yar yahay, adiga oo keliya ayaa kali karo. kod maxaa ku jiro? Waad arkaysaa, ee kaalay dhagaxa dhaqaaji. Alaatiin waxa uu bilaabay inuu dhaqaajiyo dhagixii weynaa si uu u kala kodka ku yaalo. Kadibna asiga wuxuu kalay kodka meesha ku yaalay. Maxaad uga jeedaa kodka? abti meeshan waxaa ka buuxo dahab aad u fara badan iyo luul iyo qalin. Waad wanaagsan tahay. Marka ii soo dhiib. Abtigii dhuuniga badnaa wuxuu aruursaday dahabka meesha ku jiro idil. abti midkan ayaa u dambayso. marka aniga hadda ii bixi. Waad mahadsan tahay Alaatiin, laakiin aniga meeshan kaama bixin karo. Haddii kaleeto dadka ayaa u sheegaysaa waxaan sameeyey. yaa maya abti waa ku baryayaa meeshanita iga bixi waa ku baryayaa aniga keligay meesha ma ka bixi kari. Waan ogahay ma ka bixi kartid. maya abti ha sameynin midaas meeshaniti waa mugdi aad ayaa uga cabsanaya. sax waay, mugdi waaye. marka aniga asxaan ayaa ku sameynayaa. midaaneti qaada iftiin inay kuu noqoto ayaa laga yaabaa. Abtigii Alaatiin wuu khiyaanay. Meesha ayuuna iskaga tagay. Alaatiin wuxuu ku xiray dhagax aad u weyn. jelmadan iftiinkeedu sii baaba-ooyaa abtigeygana jelmadan bas ayuu igaaga tegay. maxaa sameeyaa marka? sugbo waxaa ka tirtirayaa wasaqda laga yaabaa inuu iftiin yeeshto. Alaatiin waxa uu sasalaaxay jelmada waxaana ka soo baxay jin. maxaa kuu samayn karaa mudane? kumaa tahay adiga? aniga waxaan ahay Jenny. Alaatiin aad ayuu midaasi ula yaabay. aniga shaqadeeda waxaa waay inaa kuu sameey waxaa rabtid. waayahay
aniga kodkaan ma iga bixin kartaa? haa mudane. anigoo wax walba sii arki rabo inta ayaaba ku soo laabtay. waaw aniga arrintaas aad ayaa uga helay. waxaa dhiman inaa aragnaa fiicneed. waa inaa jalmada ku laawanaa anaka. haa aan ku laawanna marka. intaas kadib alaadiin wuxuu u soo laabtay xaafadii wuxuuna uga sheekeeyey hooyadiisa wax walba u dhacay. aad ayaa uga xumahay alaadiin, adeerkaaga nin xun ayuu ahaa. dhib ma lahan hooyo, waxwaha ka baqin, anaka lacag fara badan waa heleynaa, waxaan ku dhaqaaqinaa qorshahan. alaadiin waxa uu isticmaalay jalmada si ay noloshooda isku beddesho. jeeni anaka taajir inaan noqonaa rabnaa. waayahay mudane. alaadiin iyo noloshooda aad ayay isku beddeshay, waxayna heleen guri aad u weyn oo qasri camal ah, cunto aad u fara badan ayay heleen, nolol wanaagsan ayayna bilaabeen inay ku noolaadaan. maalin maalmaha ka mid ah alaadiin oo suuqa dhex socdo ayaa wuxuu arkay gabar aad u qurux badan oo wax gadanaysay. labadooda way isjeclaadeen wayna isla saaxiibeen, mar walbana way isla sheekaysan jireen. intaas kadibna ayaga way isguursadeen. alaadiin xaaskiisa cusub ee jasmiin waxa uu soo waday qasrigooda si uu hooyadiisa u tuso. maalin maalmaha ka mid ah alaadiin wuxuu go'aansaday inuu magaalada kala aado. jasmiin aniga waxaan aadayaa magaalada, arrin ayaana soo dhammaysanayaa. jelmadan meeshan ayaa ku dhaafayaa ogow. waayahay alaadiin, is aragti tambo. kadib alaadiin bixitaankiisa muddo kadib waxaa soo laabtay abtigii alaadiin. sidee tahay gabar yahay? aniga waxaan ahay alaadiin adeerkii, muddo dheer ayaa igu dambaysay intiina imaado. waan ogahay qofkaa tahay, waxaa tahay adeerkii dhuuniga badnaa oo alaadiin khiyaanay, adigana si xun ayaa u kashay. aniga waxba igama kale waxaad ku fikiraysid, aniga waxaa raba waa u jeedaa, waana qaadanayaa. waxa uu qaatay jalmadii alaadiin waxa uuna u wacday jiniga si uu wax uu qabto. maxaa kuu qabtaa mudane? gurigan oo idil duurka keey. waxaan joognaa duurka bartamihiisa, alaadiinna ma laga yaabo inuu helo. hadda adiga waxaa tahay shaqaalahayga jasmiin, haddii kaleeta markii xigta alaadiin ayaa dilayaa. jasmiin si ay u badbaadiso alaadiin ayaa wax walba u ogolaatay. hadda orod adiga cunto ii keen. waayahay abti. muddo kadib alaadiin waxa uu soo laabtay tuuladii
balse markii uu imaaday waa uu waayay qasrigii uu tagnaa. aad ayuu ula yaabay wuuna ka naxay sababta uu u waayay qasrigiisa. waad fiican tahay. wuxuu carfayaa si wanaagsan. biyaha ma kuu shubaa? Jasmine waxay u soo tartay biyaha sun. mid kale ma kuugu taraa? aniga dhan waxa u maleeyaa inaan si kale ahay. mid kale ayaa kuugu tarayaa keen. abtigii korkiisa oo idil ayay ku wada faaftay sunta. kadibna Jasmine mindi ayay ku dishay. haa mudane. Jenny, wax walba meeshii hore ay ka imaadeen ku celi. waayahay mudane. qasrigii meeshiisa hore ayuu ku soo laabtay. Aladdin aad ayuu uga farxay midaas. sidee anaka meeshaan ugu soo laabanay? Jasmine ayaa ka dalbatay Jenny wax walba meeshii ay ka imaadeen in loo celiyo. anagana meesha hore ka imaanayana loo soo celiyay. wow alla maxay wax fiican maanta dhaceen. waayahaye Blue, adiga ma waxaa rabtaa meesha inaad u laabatid? waa faanin wasaaye. maya ma rabi inaa meeshaasi u laabto. inta ayaa ku fiicanahay. sheekada Aladdin meeshan ayay ku dhamaatay. waad mahadsantihiin.